xaaladda magaalada Muqdisho ayaa si weyn u kacsan kadib markii cirka isku shareeray khilaafka ka dhashay fadhiga ay maanta yeelan lahaayeen xildhibaanada cusub ee golaha baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo dooran lahaa shirguddoonka fadhiga oo loo qorsheeyay inuu ka dhaco taandhada afisyoon ee xerada Xalane ayaa ilaa hadda aan suurto gelin waxaana halkaasi jooga ciidamo kala duwan oo ka amar qaadanaya xafiisyo kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Deeq Macalin Jino Jeekay oo ku sugan isagu xarunta loo qorsheeyay inay maanta ka dhacdo doorashada shirguddoonka golaha shacabka ayaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariye Deeq soo dhawow bal waxaad ka warantaa ilaa hadda maxaa hortaagan in xildhibaanadu ay fadhiistaan isla markaana ay doortaan shirguddoonkii maanta ay ku ballansanaayeen inay doortaan Ismaaciil waa mahadsan tahay subaxnimadii hore ee taakay amba halkii saac ee subaxnimo qof walba sidoo u yaqaan ayaa waxaan soo gaarnay afafka hore ee teenada afisyoon ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu ballamiyay inay ka dhacdo doorashada Soomaaliya gaar ahaan tan xildhibaanada gaar ahaan tan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xaalad kacsanaan ayaa weli ka taagan sidii loo qaban lahaa doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse ma suuro gelin xilligan oo kula hadlayo oo todobadii doornimo oo gowa amba koodii doornimo oo gowa qof walba sidoo uu kala shaqo yahay ma suuro gelin in gudaha u galno xarunta teenada afisyoon ee magaalada Muqdisho waxaa jira isku dhacyo ciidan oo ka jira xarunta gudaha kuwaasi oo aan la ogolaanin inaad toos u galno teenada afisyoon ee magaalada Muqdisho wariyaashu waxay ku sugan yihiin banaanka hore ee teenada afisyoon ilaa hadda waxaa isku cakiran xaalad waxaa jira weli dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda xarunta teenada afisyoon gaar ahaan halka hoolka iyo sidoo kaleeto banaanka hore ee xarunta teenada waxaa jira ciidaman kala taabacsan labada dhinac inay soo bordhaafiyeen sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo gaaray xarunta teenada afisyoon ee magaalada Muqdisho si toos ah ra'iisul wasaaraha wuxuu u shiray qaar kamid ah xubnaha beesha caalamka ee ku sugan teenada wuxuu kala hadlay arrinta doorashada dalka gaar ahaan tan lagu ballansan yahay maanta inay dhacdo ay ahayd tan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya laakiin ilaa iyo hadda wax rasmi ah oo aan hayno oo aan si sax ah loogu soo tagay xarunta teenada ma jirin laakiin waxaa jira kaliya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya qaarkood inay gudaha galeen kadib markii soo hortaag lagu sameeyay laakiin taas waxay sababtay ciidamada ilaaliya xildhibaanada inay awood ay adeegsadeen kadibna loo ogolaaday in madaxda xildhibaanada gudaha ay ogolaan deeqow sidaad sheegtay ciidamo kala duwan ayaa ku sugan xarunta loogu talagalay in doorashadu ka dhacdo ciidamadaasi ilaa hadda ayay ka amar qaadanayaan Ismaaciil ciidamadu laba qayb waaye waa shaqo ciidamada booliska Soomaaliya tan warkii xal ka soo baxay taliye xijaar ayaa saameyn xoog la yeeshay taliye xijaar xalay wuxuu sheegay in halkaasi doorashada ka dhici karin maadaama doorashadu la yiri wuxuu taliyuhu ku sheegay in xaalad amni darteed loo joojiyo doorashada halka xafiiska wasaaraha ay ku qanacsan yihiin in maanta doorashadii ee toos ee u dhacday tan guddoonka golaha shacabka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxa uu shaacay goor dhow in doorashada Soomaaliya gaar ahaan tan golaha shacabka ee dhacaysa saacadaha soo socdo laakiin Ismaaciil ma muuqato ifafaalo sax ah ee maanta ku qabsan karto doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka waxaa halkaas ku go'an ciidamo ka tirsan kuwa Amisom iyo sidoo kale kuwa militariga gaar ahaan ciidamada ilaalada gaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho marka masalan aad doonto in sax loo galo hadii uu ka soo bixin amar kale oo dheeraad ah xafiiska ra'iisul wasaaraha deeqow ilaa hadda xildhibaanada inta laga yaa gudaha galay laakiin hadda xildhibaanada badan ee gudaha galeen xildhibaanadii laga soo doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ma ku jiraan iyagoo xildhibaanada maanta loo ogoliyay inay gudaha u galaan taandhada afisyoon gabadha ugu weyn ayaa waxa ay tahay xildhibaanada Ceelwaaq laga soo doortay labadooda inay gudaha galayaan iyo in kale waa ta dhibaatada ugu xoogan laga dhaxlaayo deeqo waxa kale oo jecel inaan ku weydiiyo doorka ciidamada Amisom ama ATMIS ay ka qaadanayaan goobta maadaama ra'iisul wasaaruhu iyaga amar ku siiyay inay hore ula wareegaan amniga ciidamada ATMIS waxa looga talagalay sidoo kale inay ilaaliyaan amniga doorashada Soomaaliya hadii aanad mid madaxweynaha sidoo kale kamida guddoonka golaha shacabka ee labada aqal shalay dowladda ay ku soo dhamaatay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo Cabdi Xaashi ku guuleystay maanta waxa la filayay in doorashada guddoonka golaha shacabka la qabto subaxnimadii hore ee saaki ilaa hadda wax u qabsan ma jiraan xildhibaanada intooda ugu badan xaadir kuma teenada afisyoon daawadayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho oo si toos ah ugu jiray khadka telefoonka isagoo ku sugan xarunta loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada shirguddoonka golaha shacabka balse ilaa hadda doorashadaasi aanay qabsoomin daawadayaal wixii warare ee dheeraaday arrintaasi ka soo kordhana si toos ah ayaa ugala socon doontaan xarunta Saab TV qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam
eFatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber